warahmatullahi wabarakatuh. Marka aad rabtid inaad taajir noqotid ama nin hantiile aad noqotid ama isku filnaansho dhaqaale inaad gaartid marka ku fikiraysid caqabadka ugu horeeyo ay dadka qaar ku dhacayaan waxaa ka mid ah tasarrufkooda isticmaalkooda lacagta oo aad u sareeyo waxa soo galayo iyo waxa ka baxay inay sinaan waayaan. Sidoo kale waxaa ka mid ah fikirka ah in qofkan oo amaahda ama deynta uu badiyo oo ah dabin uu qofku ku dhacayo uusan ciyowna uusan ka dhaxbixinin. maxaa la yiraahdaa Ilaahay subhanahu wa ta'ala quraankiisa wuxuu ku sheegay aayad ugu dheer wuxuu kaga hadlay deynta waa culeyskeeda iyo dhibaatooyinka qofka shakhsiyan uu leeyahay ama qofka laga deensanayo ama qofka deensanayo uu leeyahay. laguma laha deynta sideedaba muhiim ma aha cid ku dhehaysa ma jirto deynta marmarka qaar ay duruufaha ay ku khasbaysaa jirto laakiin mar diintaas waa inay noqotaa diin sabab ah u soo qaadanaysid oo maxaa la yiraahdaa markuu ugu horeysana aad bixinaysid. laakiin haddii bila sabab ah u soo qaadatid ama maahane kamaaliyaadkaaga dartiisa aad u soo qaadatid waxaa muhiim ahaan inaad gaari ku gadatid camal inaad telefoon ku iibsatid camal in shay aad ka maarmi kartid aad ku soo iibsatid lacag ama aad ku soo qaaday camal. marka aad baan ugu xumahay dabanadaas weeyaan dabanada inta badan iyo dadka qaar ay ku dhacaan ayagoo ku fikirayo ku haminayo in maxaa la yiraahdaa ay hantiilayaal ay noqdaan. Ilaahay subhanahu wa ta'ala rasuulkeena salawaatullaahi wa salaamu alayhi diintu uu ka magan gali jiray Ilaahay deen dhulka idhigataan ka magan galay ayuu dhihi jiray. sidoo kale rasuulka salawaatullaahi wa salaamu alayhi maalmaha kamid ah masjidka ayuu soo galay wuxuu ku arkay saxaabi Abu Tamaama in la yiraahdo aan u malaynayo ومساجدك دح فديو تيرarka masaajidka mid kamid ku tiirsan ayuu arkay markaas wuxuu ku yiraahdo tamaamu xilligii salaada xilli aan ahayn ba masaajidka dhex fadhiday sidee wax u jiraan ayuu ku yiri Abu Tamaam radiyallahu anhu warda wuxuu yiri rasuulkii Ilaahayow propaleeno ba isugu keetagay ideen dhabarka iga dul saaran oo ugu cuslaatay ayaa halka dhikeetooda propaleena ayaa imurjiyay deen igu cuslaatayna way jirtaa ayuu yiri rasuulka salawaatullaahi wa salaamu alayhi adciya ayuu baray duca ayuu baray ducadan akhrisa ayuu yiri Ilaahay wuu ka qaadayaa diinta rasuulka salawaatullaahi wa salaamu alayhi awoodu u lahaa diinta inuu ka bixiyo sidoo kale saxaabada inuu isku yeero ninka diinta laga bixiyo inuu yiraahdo awood buu u lahaa laakiin wuxuu rabay inuu umada jiheeyo in saxaabigan radiyallahu anhu warda wax baran uu rabay marka diinta culeyskaas ayay leedahay cilaaskaas ay saxaabada ku yeelatay saxaabiga ay ku yeelatay rasuulka salawaatullaahi wa salaamu alayhi qof baa dhintay markuu dhintay janaaso inuu ku dugtaan loo keenay wuu weydiiyay qofkan deemiya laga rabaa maya ayaa la yiri rasuulka salawaatullaahi wa salaamu alayhi janaasadii ayuu ku dugtay qof labaad ayaa loo keenay wuu wareystay qofkan deemiya laga rabaa ha ayaa la yiri oo xoolo ka tagay xoolo uu isaga bixin karo diintan ayuu yiri ha ayaa la yiri janaasada ayuu ku dugtay qof saddexaad ayaa loo keenay la yiri rasuulka salawaatullaahi wa salaamu alayhi wuu weydiiyay qofkan deemiya laga rabaa qofkan deemiya laga rabaa janaaso markii loo keeno waa su'aasha ugu horeysa rasuulka salawaatullaahi wa salaamu alayhi uu weydiin jiray intuu soo ku dukanin markaas waxa la yiri rasuulka Ilaahay ha deem baa laga rabaa markaas wuxuu yiri xoolo miyuu ka tagay oo isaga bixin karo oo laga bixin karo qofkan maya ayaa la yiri markaas rasuulku soo laabtay dhanka hore uu taagnaa oo ka soo laabtay wuxuu yiri ku dugtaa idinka waa faateer oo malayna ciidamadaas ama weyninkaas ay diinta maxaa la yiraahdaa qofka ibn aadamka ay ku leedahay sharciga islaamka diinta saas ay u adkeeyay maxaa la yiraahdaa rasuulka salawaatullaahi wa salaamu alayhi xadiis kale waxa la sheegaa qofkan diin baa laga rabaa acmaal jannada ayuu aadi lahaa la geyn lahaa laakiin wuxuu u xabisan yahay deen laga rabo darteeda ayuu yiri xadiis macnihiisu yahay ikhwaani wa akhwaati noloshaada ee adduunyada ah ama ina hantiila noqotid waxa ku dabraya waxa kamid ah diimanka aad isticmaalaysid oo bila qorshaha inta soo qaadatid waxa muhiim ah in aad ku bixin kartid waa noolaanaysaa inta aad umri ku dhiman baahid u dhimanaysaa ma jirto sabab deen aad u qaadatid waa inaad ka maaratid intaad awoodid inaad ka maaratid waxa ka maarmi weysid waa gooni laakiin inta ka maarmi kartid waa inaad ku dadaashid inaad maxaa la yiraahdaa iska ilaalisid diinta caqabadka ugu badan qofku markuu deen qaato ishaaraadkiisa awal u soo dhici jiray ama soo gaari jiray maxaa la yiraahdaa waxay ku jaango'an yihiin duruufihiisa bishaas markay deenku soo gashay duruufaha bishaas mishaarkay ku bixisay
bisha kale tiri sidoo kale duruufihii un baa taagan diintaas halkeeda ma fududo marka aan ku dadaalno sidaan isaga qaban lahayn isaga xalin lahayn maxaa la yiraahdaa dabinka diinta inaan ku dhaco ninka 100 ku siiyo oo dollar ama ninka 100 maxaa la yiraahdaa $1,000 ku siiyo waxaad u tahay ay yiraahdaan adoon asaga xabsi ugu jirta aad u xirantahay haddii kaba soo qaad Chinese ay fursad ay ku soo maraan $100,000 markaas ku soo marto waxaad isaga bixinaysaa xabsiga ku jirtida si ay isaga furdaamis darteeda isaga bixin laakiin hadda ka maarmi lahayd xilligaas fursadan ay ku soo marin lahayd guud shaqo wanaagsan ay ku noqon lahayd marka horu socodkaaga horumarkaaga inta aad ka fogaan kartid ina amaah qaadatid waa iska ilaaliyaa hal amaah jirto maxaa la yiraahdaa marka aad rabtid inaad taajir noqotid la qaato waa amaah oo maxaa la yiraahdaa intaad qaadatid investment aad ku sameynaysid aad meel maal gashanaysid shirkad intaad ku darsatid maxaa la yiraahdaa ama meherad aad ku samaysid wixii kaaga soo dhacay diinta isaga bixisid wixii meeshaas kaaga soo dhacana ay isaga bixisid laakiin meherada aad sameynaysid ama investment aad sameynaysid waa inuu noqdaa mid marka hore aad soo daraasaysay oo aad hubtid 100% inuu yahay marka intaas ayaan kugu soo gaabinayaa. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi.